قسما بمن خلق الشداد طباقا وتسرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalaha garbahayga ku soo dhawaada weelkii dunida iyo waxtarkii bulshada. aniga waxaan ahay Xafsa, YouTube-ka aad naga daawanaysaa Xafsa channel. barnaamijkan waxaa idin soo gudbisay islaaniga walaashan Xafsayd. soo dhawaada meel walba ay joogtaan. waxaan Allah subhanahu wa ta'ala idinka baryaa cimri dheer, cibaado suubayno Allah idin siiyo insha Allah. waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan. aniga waan fiicanahay alxamdulillah. waxaa inoo soo socday kitaabkeena imtixaanaha ahaa ee la magac baxay baro boqol xadiis. hase yeeshee intaan u gudgalin darsigeeni maanta ugu horeen haddii ay tahay marka ugu horeysay aad channelka soo booqatay fadlan subscribe saar. haddii aad hore nool joogtaan like saar u share garee asxaabtaada. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga. haddii aad dhameystay daawashada muuqaalka fadlan like saar. ku soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub iyo darsigeeni 69aad biidnillah. bismillah. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu dhahay midkiin iimaan dhaba lagama helin ilaa uu iga jeclaado waalidkiisa, ilmihiisa iyo dadka dhammaantooda. xadiiskan waxaa isku waafaqay imaam Bukhari, imaam Muslim. nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu dhahay midkiin iimaan dhaba lagama helin xataa akuuna axabba ilayhi ilaa uu iga jeclaado min waalidihi waalidkiisa, wa waladihi ilmihiisa, wanaasi ajmaciin iyo dadka dhammaantooda. nabiga sallallahu calayhi wasallam waa ash-shafaacatu al-cudma yowma al-qiyaama, midka inoo shafeeco qaadi lahaa maalinta yowma al-qiyaama. marka ayna dhahaan nebiyaasha oo dhan nafsi nafsi, waa midka kaliya ee jannada inagu hogaaga. maantana maxaan sameynaynaa? waan aflagaadeynaa, waan caynaynaa, wuxuusan ahayn ayaan ka sheegaynaa. asigoo soo maray diinta si uuna soo gaarsiiyo dhibaatooyin fara badan iyo caqabado fara badan, taasoo u dulqaatay si uu noo soo gaarsiiyo diinta. markii uu geeriyoonayay wuxuu dhahay dhammaan ummadayda oo dhan sakaraadkooda hal ii soo saaro ayuu dhahay nabiga sallallahu calayhi wasallam. markii uu geeriyoonayay ee nafta ka bixiyay waa uu ilmeeyay. sababtan waxay tahay xanuunka darti ee sakaraadka. maantana anaga waxaan ku sameynaynaa waxyaabo aan lagu sameyn karin qof bani aadam, iska daa nabigeena sallallahu calayhi wasallam. nabiga waa inaad ka jeclaataa waxa adduunkan yaalo oo dhan, aad u dagaalantaa. aad baan ugu faraxsanahay asxaabta igu soo biireyso YouTube-keena. waxaan leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi saafiya, niyad furan. qalbiga ayaa idinka dhaweynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. استعن بالله ولا تعجل. قسما بمن خلق الشداد طباقا وتسرى وبخضرات.